السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم حرم فاتوش فاميلي السود وهذا وولاشين فتوش channel ka daawanaysiina waa Faatuush family maanta waa update keeni waxyaabo badan ayaan ka hadli doonaa insha Allah soo dhawaada waxaan siin doonaa update badan waxyaabo badan insha Allah thank you ku mahadsantiisa markasta igu xirantiin oo update kayga u dhageysatiin aniguna de update ka aanay kugu soo tabiyo waxyaabaha ka socda America especially White House ka ayaa loo dhacay marka insha Allah waxaas baan isla qaaba dhigi doona marka soo dhawaada subscribe saar asxaabtaada la share garay channelkeena inuu kordho insha Allah ka shaqeey markasta asxaab share garay way jiraan haddana sii share garay like tana dhac uga siiya channelku wuxuu ku kordhaa waa wax السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحي ما دهي aad qurux badan waxaad ka heli kartaa store-kana online ka telefoonka naga soo wac ama snapchat-ka igala hadal sidoo kale waxa imaada gooyaashii sariiraha iyo miiska qadada alaabtii la saarayay shibina waan sameynaa insha Allah soo hadaba waxaan ku hormareynaa Supreme Court-ka oo joojisay Biden talaalkiisu uu ku soo rogay all shaqaalooyinka dhan iyo testingki maxaa dhacay waxa dhacday sida ogsoonaydeen in ay Biden uu soo rogay in qof company haysta 100 staff ama shaqaale ka badan 100 iyo wixii ka badan inay istalaalaan hadda istalaali weysid inaa weekly testing asamaysid aad shaqayn karinin la ganaaxaya company-yada in badan baa la isku dalaa isteedyo badan baa sameeyeen waxa dhacday maxkamadda hoose ayaa marka hore stop gareysay markii ay joojisay in lagu soo rogo ganacsiyada iyo maxaa la dhihi jiray shaqaalaha dhan oo America in lagu soo rogo waxa la isla aaday Supreme Court-ka maanta ayaa Supreme Court-ka waxay soo saartay war aad aan uga farxinin madaxweynaha iyo xisbigiisa kuwii taageersanaa in talaalka la hirgaliyo si dadku ay isku wada talaalaan oo dadka dhan America jooga ay talaalka u badiyo in badan baa war laga sugayay Supreme Court-ka laakiin Supreme Court-ka waxa ay tiri inay hold gareynayso oo stop gareynayso inuu hirgalo talaalka uu ku soo rogayo shaqaalaha kaliya waxa ay ka reebeen kuwa caafimaadka u shaqeeya kuwa health care-ka u shaqeeya still ayaka uu qabanaya sharciga laakiin shaqaalaha dhan oo America amalo kale company kasto 100 qof iyo wixii ka badan haysta ma uu qabanaya laakiin still caafimaadka dadka meelaha health care-ka ka shaqeeya yes inay wali istalaalaan waa soo company-da waxa laga joojiyay inay qasab ku qofku inuu test gareeyo xataa oo isbaaro waxa la yiri waa overstepped way yani waa rule-kiisi ama shaqadiisi meel ahayn ayuu u gudbay kuma uu sugu rogi karto mana dhicin baa la yiri hadda ka hor marka waa la joojiyay I don't know wixii kale ka daba imaan doona inay la challenge gareyn doonaan ogaadaya Supreme Court-ka xataa waa 6 iyo 3 waa dimuqraadi 6na waa Republican marka yaa de talaalka cidii diidanayna waa Republican oo marka inuu xagaas u janjarsan inay sax tahay ma la kala garan karo laakiin waa la joojiyay haddii aad caafimaadka ka shaqeyso uu still waajib kugu yahay inaad istilaash sidoo kale senatorka Bernie Sanders senatorkaas iyo sanadyada dhan oo dimuqraadiga 50 ayaa waxay maanta soo bandhigeen biilkooda lacag ku saabsan oo lagu doonayo in America dhan maskiga la siiyo asagoo free muxuu yahay maskigaas waxa la yiraahdaa N95 waxa lagu sameeyay America markii America lagu sameeyay waxa la ogaa talaal dhahday maskiyada badan ee la qaato badankooda in aysan capable ahayn in ciliyaan oo aysan strong ahayn inay ka difaacaan coronavirus-ka wax badan baa la soo saaraa meel badan bay ka imaadeen quality-gooda iyo waxtarkooda baa iska yar qaarkooda waa la tuuraa qaar waa la dhaqaa qaar waa mariyo marka waxa la yiri waa in dhinacaas la iska gijiya shalay bay ahayd wixii madaxweynaha uu sheegay inuu free mask quality uu soo sameyn doono soo lacagtan biilkan maanta ay sheegeen waxa lagu rabaa in lagu beegaray oo lagu soo saaro N95 waa mask aad u adag oo made in America ee America lagu sameeyay in dadka dhan waxa loo qaybiyo oo free ah ku heshid N95 kaas very expensive buu cid gadan karta malahan dadka qaar ku gataan laakiin
badankooda waxa isticmaali jireen meelaha caafimaadiyada iyo meelahaas laga isticmaalaa laakiin N95 qof kasta ma gato kuwa caadiga la iska isticmaala because available ba ma waagar la waayay soo marka in productionkeeda la badiyo oo la soo saaro oo dadkana free lagu siiyo wow sida ay u qaybin doonaan kulli ani waxa ila noqonaysaa website ayaa jiri doona sida hadda testingka website-ka la sheegayo laga dalbanay aan uma dalbanine in dadku ay ka dalban doonaan muxuu yahay biilkan markii loo codeeyo oo la wada dhameeyo oo loo codeeyo u baas garoobo in America dhamaaska loo qaybiyo oo maskiga la siiyo because quality-ga le waxa laga hadlayaa dadkii maski xirta markaa tira wax quality aan la xirinaynin dee wuxuu difaacay ma lahan basoomaha that's why lacagta loo qarash kareynaya marka waan sugaynaa inta uu ka soo bixi doono meesha aad ka dalban kartid aniga ayaan la soo socodsiin doona markii ay soo saaraan kulay website bay dhihi doonaan meeshaas ha laga dalbado sidoo kale Florida ayaa waxa ku soo baxday gabar dimuqraadiga u tartanaysay sit laga retire gareeyay oo meel laga retire gareeyay ay boss ay qaadanaysay marka aakhiriyay yani waad yaabaysaa gabadhaas maxay ku soo baxday waxay ku soo baxday in ay promote gareysay oo ay ballan qaaday inay bixin doonto 1000 oo $1,000 oo UBI ah Universal Basic Income sidaas ayaa ay something loogu doortay UBI daas inay 1000 Florida dadka degan UBI 1000 la siinayo waliba especially waxay ka hadashay dadka maadaama child tax credit la qaadanayo dad badan oo waaweyn oo dad waaweyn ah oo dadka seniorka camal oo kale aysan heli jirin child tax credit because ilmaha yinisha ma haystaan waxay rabtaa in iyakuna ay lacag helaan marka waxay taagan tahay 1000 UBI aan waxaynaya iskama ay soo bixinin gabadhaas waxa lagu leeyahay lacagteeda ay isticmaasho personalka ah $135,000 kaliya ka isticmaasho wax loo raise gareeyay waxay ku soo baxday money ba isku dul shubtay ma fahmaysaa moneyga maalin kasta ka hadalna intay qaadatay ku qubaysatay wax kale ma 2.7 million ayaa ku kacday baa la yiri ay isku isbaangaraysay inay doorashadeeda kaliya ay soo baxdo 2.7 million waxa ay gabadhaas isticmaashay lacag min waalidkeed baa uga dhintay bas ayadaaba shaqaysanaysay lacag ayadu ay lahayd bay isku soo saartay ayadoo promise garanaysa dadka badan ay ugu codeeyeen sidaa darteeda 1000 UBI inay bixinayso bal aan aragno 1000 UBI da markuu bilaabanayo aniga la soo socodsiinaya meesha ay gabadhaasi ku bixin doonto kulay way seatkii ay u ordaysay White House ay aadi doontaa seatkii ay u ordaysay kursigii way heshay jagadii lacag badan ku waxaysadee lacag badan bay isku spend garaysay 2.7 million lacag yar ma oo ay tiri 135,000 bis ayaa iga imaatay tiri donation iyo dad waxay siiyaan waaw lacagta adduunka waa marka UBI da aan ku keenay dad badan waxa jira iga sugaya UBI insha Allah waan soo tabinayaa waan soo aqrin doonaa insha Allah especially mid Minneapolis waqtiga ay bilaabanayso iyo dad miyay bilaabatay dad miyaa la doortay la hadda kama warqabo insha Allah laakiin aniga ayaa in la soo socodsiinaya hadii Ilaahay ma ku mahadsantahay sida markasta barnaamijkeedana ugu xiran tahay oo dad daawadid oo channelkeena aad soo booqatay still subscribe noo saar gambaleelkana fura asxaabtaada nala share gare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh